kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudano halkani waa channelka Bisla TV waxaanu gaarnaa amintaan idin soo gudbin jirnay war waxaad ka haynay guud ahaan caalamka iyo deegaanada ay Soomaalidu degto warka waxaad la socodsiinaysaa anigoo ah Najmi Maxamed Daarood bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudano halkani waa channelka Bisla TV ood kala socon doontaan warar sugan warbixino xasaasi iyo barnaamijyo aad u xiiso badan kuwaasi oo ay kamid yihiin barnaamijka dhalinyarada haweenka iyo arrimaha bulshada daawadayaal aad baad u mahadsantihiin asxaabteena ku xidhan channelka sidoo kale waxaanu ka codsanaa asxaabtaan nagu xidhnay inay channelka noo saaraan like-ta share-ta iyo subscribe-ta waxaad nagala socon kartaan bartaan ku leenahay baraha bulshada sida Facebook YouTube iyo Twitter balanteenu markasta waa channelka Bisla TV shalay ayay ahayd markii uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble uu shaqo joojin ku sameeyay agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir una magacaabay si ku meel gaar ah agaasimaha guud ee NISA Sareeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac gabagabadii ra'iisul wasaaraha ayaa faray xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida inuu baaro kiiska Ikraan Tahliil Faarax isla markaana uu horgeeyo maxkamadda awood u leh balse taasi ma ay suurtagelin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay shaqo joojinta lagu sameeyay Fahad Yaasiin madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hor yimid go'aankii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu shaqo joojinta ugu sameeyay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin qoraal ka soo baxay xafiiska Farmaajo aad u dheer ayaa lagu xusay qodobo dhowr ah oo ka mid ahaa dastuurka dalka oo la xiriira shaqo joojinta Rooble ku sameeyay Fahad Yaasiin madaxweynaha Jamhuuriyadda markii uu arkay warqad sumadeedu ay tahay XRW 2021 bisha 9aad ee uu soo saaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble shaqo ka joojinta taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo magacaabista taliye ku meel gaar ah markii uu arkay qodobada 78aad iyo 9aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo qeexaya in madaxweynaha jamhuuriyaddu yahay ilaaliyaha iyo horumaryaha mabaadi'da aasaasiga ah ee dastuurka uuna yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida markii uu arkay qodobada 79aad iyo 100aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo hagaya awoodaha laanta fulinta iyo xilka wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku aadan xilka qaadista taliyayaasha ciidamada qalabka sida taasoo ku eegtay soo jeedin iyo fulinta hawlaha horumarinta siyaasadda dhaqaalaha iyo maamulka dalka ayaa lagu yiri warqad ka soo baxday xafiiska madaxtooyada Soomaaliya war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ka mid ahaa 4 qodob oo lagu tilmaamayo shaqada ra'iisul wasaare Rooble iyo inuu baalmaray dastuurka dalka go'aan ka soo baxay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble inuu yahay mid baalmarsan xeerka oo aan waafaqsanayn dastuurka dalka 2 waxa la farayaa taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir inuu sii wado hogaaminta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka si waafaqsan dastuurka iyo wareegtidii madaxweynuhu ku magacaabay 3 hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxa la farayaa inay hor keento golaha amniga qaranka warbixinta laga sugayay marka loo mudeeyo kulanka ugu horeeya golaha amniga qaranka 4 ugu dambeyntii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu farayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo golaha xukuumadda inay si hufan u gutaan mas'uuliyadda ka saaran dhamaystirka hawlaha doorashooyinka hadalkan oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha muddaxileedkiisii dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa imaanaya kadib markii shaqo joojin ku sameeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya taliyihii hay'adda nabad sugidda qaranka Fahad Yaasiin Bisla TV Najmi Maxamed Daarood xijaar oo shir degdeg ah isugu yeedhay saraakiisha booliska Soomaaliyeed taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed Generaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa fariin u diray saraakiisha booliska Soomaaliyeed waxaana uu isugu yeedhay shir degdeg ah sida ay shaaciyeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay shirkan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxa ka qayb galaya dhammaan saraakiisha booliska sida taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo dhammaan taliyayaasha kale lama shaacin ujeedka kulankan balse waxay u badan tahay in looga hadlayo xaaladaha soo kordhay ee xiisada ka dhalatay kiiska Ikraan Tahliil Faarax sidoo kale waxaa la filayaa in taliska boolisku soo saarayo go'aano culus oo la xiriira xaaladda taagan iyo amniga guud ee dalka maadaama ay xiisadu ka dartay
arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu shaqadii ka joojiyay agaasimaha guud ee NISA sidoo kalena madaxweynaha uu muddo xileedkiisu dhamaaday uu ka soo horjeestay taasoo keentay inay ka sii darto xiisada ka jirta dalka. khilaafka haatan soo shaacabaxay ayaa durba saameyntiisa laga dareemay dalka waxaana la ogeyn halka uu ugu dambeyn doono murankan ka dhashay shaqo joojinta Fahad Yaasiin iyo dilka la sheegay in xoogga kooxda Al-Shabaab u geysteen Ikraan Tahliil Faarax. magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in dadaal dheer kadib ugu dambeyn lagu guuleystay in la sii daayo dhalinyaradii saddexda ahaa ee dhowaan sababo la xiriira kiiska Ikraan Tahliil loogu afduubtay magaaladaasi Beledweyne. maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa socday dadaalo ay wadeen odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo maamulka gobolka Hiiraan kaas oo ugu dambeyn sababtay in dhalinyarada la sii daayo. xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir Maxamed oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee waqtigoodu dhamaaday ayaa soo dhaweeyay tallaabada lagu sii daayo dhalinyaradaasi isagoo u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay sii deyntooda. waxaana bogaadinayaa in uu miro dhalay dadaalkii iyo hawsha hagar la'aanta ahayd ee ay qabteen odayaasha dhaqanka, mas'uuliyiinta iyo aqoon-yahanada labada beelood ee walaalaha ah oo saaka ku guuleystay inay xorriyadoodii u soo celiyaan saddexda dhalinyarada ahayd ee lagu haystay degmada Beledweyne iyagoo bad qaba. waxaana si gaar ah ugu mahad celinaya odayaasha dhaqanka, mas'uuliyiinta iyo qoyska ay ka dhalatay Ikraan Tahliil Faarax oo muujiyay dadaal dheeraad ah. waxaan mar kale ugu baaqayaa in walaalaha wada degan deegaanka ay ilaashadaan deris wanaagga iyo xiriirka soo jireenka ah ee ka wada dhexeeya lana adkeeyo nabadgelyada iyo wadajirka bulshada wada degan degmada Beledweyne ayuu yiri Faarax Sheekh Cabdulqaadir. dadkan ku nool magaalada Beledweyne ayaa aad uga carooday afduubka loo geystay dhalinyarada oo qaarkood aad looga yaqaan magaalada waxaana ugu dambeyn lagu guuleystay in xorriyadooda helaan. dagaalo u dhaxeeya ciidamada dawladda Soomaaliya iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka Bariire oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. dagaalka ayaa wuxuu yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidamada dawladda ku leeyihiin deegaanka Bariire waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab isla markaana ay jiraan khasaarooyin labada dhinac ka soo gaadhay dagaalka. dhinaca kale saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda ayaa waxay sheegeen inay ka hortageen weerarkii ka yimid dhinaca Al-Shabaab isla markaana dagaalka ay la galeen ay ku gaarsiiyeen khasaare fara badan. wararka ugu dambeeyay naga soo gaaraya deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegayaan ciidamada dawladda ay halkaasi ka wadaan dhaqdhaqaaqyo iyo hawlgallo ka dhan ah Al-Shabaab. halkaan nagala socoto waa channelka Bisla TV waxaana idila socodsiinaysay aniga oo Najmo Maxamed Baaruud. intaan ku kulmi doono xog la mid ah ama warka xiga waxaan idinkaga tagnaa sidaas iyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.